ardayda Soomaaliyeed iyo jaalida Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayaa maanta si wadajir ah uga ciiday magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. Soomaalida oo inta badan ku tukata salaada ciidda garoonka kubadda cagta ee jaamacadda caalamiga ee Afrika ku dhex yaala ayaa halkaasi farxadda ciidda kula wadaagay kumanaanka jaalidaha kale ee ka soo jeeda wadamada Afrika iyo Aasiya intaba. qaar ka mid ah ardaydaasi oo TV-ga qaranka kula hadlayay oo ku sugan magaalada Khartoum gaar ahaan jaamacadda Afrika ayaa yiri sida tan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo ummadda Islaamka caalamka meel walba ay ka joogaan. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, ciid saciid. dadka dhan baa wada salaamaya si gaar halkan waxaan uga salaamayaa haddii muuqayga iyo codkayga uu gaarayo hooyada Aamina Aadan Cigaal iyo dhammaan inta ka soo harto islaamka meel walba oo joogaan Soomaaliga oo afkayga iyo luqadeeda fahmaya waxaan uga baryaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadankayga in ciidaha dambe aan ku ciido si ma garanaysa sidaan iga farxad baan hadii Ilaahay yiraahdo magacayga weelaaray Maxamed Xuseen Xasan gentleman waa biknooliya magaalada wadanka Suudaan magaalada Khartoum muddo 4 sano roogi way ka faraxsanaa inta maanta geeg Suudaan Khartoum ka ciida sanadkii horna kiidahay wadanka Soomaaliya caasimadda Muqdisho farxad eedeed meelka salaamay aaday Faadumo Usmaan Iidow iyo awkay Xuseen Xasan Iidow roogan magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya iyo walaalooga inta badan ay salaamay abaayay Shukri Xuseen Xasan Iidow oo ka nool magaalada Muqdisho وابسي سلامي دمانتين تي في اس ان تي في waxaan halkan ka salaamayaa ummadda dhammaan ummadda muslimiinta meel walba dunida ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum sanadkiisa ku gaara bashbashi buraaqo waxaan si gaar ah u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ka joogaan dal iyo dibad sidoo kale waxaan salaamayaa family dhammaan reer Macali Yuusuf meel walba dunida ka joogaan sidoo kale reer Macali Yare gaar ahaan walaashii wax Macali Yare iyo ciyaalkeeda sidoo kale walaashii Samsam oo magaalada Boodina ku nool siigeeda iyo carruurteeda meeshaan ka salaamaya waxaa sidoo kale aan salaamayaa walaasheeda qaaliga Dr. Xamdi Xarako iyo sidoo kale iyo labada mataanaha Axmed Yaasiin oo kale ku nool magaalada Boodina أصحابتي هذه halkan ka cusub waxaan igana salaamayaa saaxiibkii Ali bin Ali oo ku nool wadanka Ukraine iyo sidoo kale Cabdullah Xasan Duuliye iyo Umar Xasan Axmed iyo dhammaan asxaabtii waxa aniga kala qaadin aad u salaamayaa waxaan leeyahay Soomaalida dhamaanteed ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair baan leeyahay Soomaalida dhamaanteed meel joogto kuwa gudihi jooga iyo kuwa dibadda jooga ardayda reer Suudaan ee Soomaaliyeedna waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciid wanaagsan baan leedahay hadii la ku ranyo wadankeeni Ilaahay noo dajiyo shirarka la qabanayo iyo hadii la ku ranyo mutamaraadka la qabanayo Ilaahay wax wanaagsan inoo ka sameeyo oo Ilaahay wax wanaagsan inoo ka saaro dadka tawfiiqan Ilaahay na waafajiyo maalinta xajka awgeed Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo ka rajaynayaa saaxiibaday telefishinka qarankana aad baan u salaamayaa had iyo jeer iyagu isku dadaala oo isku dhiba si xaqiiqada iyo warka ugu soo tabiyaan shacabkooda Soomaaliyeed aad baa u mahadsan dalka Suudaan oo arday fara badan oo 5,000 kor u dhaafaysa ay ku nool yihiin ayaa waxa ciidaha mar walba isku yimaadaan magaalada Khartoum guryaha ay ka degan yihiin iyadoo ay jirto meelo gaar ah ay isku yimaadaan sida jaamacadda Afrika iyo agaarkeeda oo Soomaalida inta badan ku badan tahay Yuusuf Maxamed Yuusuf Kashmir warbaahinta qaranka Al Khartoum.